yaana laga qaxin laascaanood caruurta yaryar haddii lagala baxaya lagala baxo inamada yaryar ee 15 jirka xataa hadduu jiro qori ha loo dhiibo abiy isir uma leh in la adoonsado ama loo sheegto laabta loo garaacdo dadkii Soomaaliyeed daaf kastu u yahay daryeel noo fidiya oo daayinkin ka baqadan leh Soomaaliba meel ay joogto haddaanu Soomaali nidhi mid ha ahaato war haddaanu nidhi dadka Soomaaliyeed oo dhan waa walaalahayo maxaanu ku weynay caawimada Soomaaliyeed maxaanu uga weynay dawladda maxay ahayd dawladdii dhisantaba warqadda annaga dhaqaalaha la baxayna annagoo dhulbahanta ah oo aan cidna baryayn baanu dhaqaalaha la baxayna khaatuma state-na annaga dhisanayne war noo saxeexa nimanka dawladda fadhiyo war annaga intaanu isu tagnay annagoo dhulbahanta kaliya oo aanan daarood kaalmo ka sugin oo aanan harti ka sugin baanu intaanu isu tagnay baanu waxaanu dhisnay khaatuma 1 khaatuma 2 khaatuma 3 qof kasta oo Soomaaliyeed xaqii uu helay iyo aqoonsigii maamulkiisu helay maxaa khaatuma state loogu diiday waxaan u sheegayaa oo fariinta u diray Xasan Sheekh Maxamuud war kitaabaad martay oo waxa tiri madaxweynihii Soomaaliya gabadhii habeen gaajoota mas'uulba ka saaran aynu dagaalano ana ugu horeeyo dhimashada diyaar baan u ahay bana cabsado waana dhimanaynaa ciideennana waan ku dhimanaynaa cid kuma duulayno cid uma socono xaafad reer degaan ma aadayno calanka buluugana waa inaad ku dhimataan hooyada oo magaalada Laascaanood laga xansuuqayo oo lagu dilay ciideedii hadalka nuuxtaani qofkii damiir lagu taabtay qofkan damiir lahayn aanu ka hadli maayo walaa waxa lagu yiri qoladan mashaartanka waxa lagu yiri warbariga aad u gasheen xabashida barigaan xabashida hubka ka soo qaadateen oo Soomaali kula soo guurteen markaasay idinku jawaasiis baad haydeen marka waxaan idhi anagu jawaasiis waxaanu ahayn dalkaanu ahayn laakiin adigu dalsheeyad u tagto way ka soo qaadato baad ka soo ala kulli xaal waxa weeyaan gabdhuhu ay gadoodi inagu de kullayba ma meeshu waynu iska joognaay rag baa inagu shaqo taga moogta siqiiriyo kabiir kood waxay soo wataan qoriye samadoonadii ba horwada sadhidiirireede oo soo samraayo wax badan sama ku soo daalay horta waxaan ku fiicanaa inaan furinta horanahay waxa laala wixii waxa waaye beesha daarad looga baahnaa waxaan dareemayaa oo garawsanahay inay sida kaliya isku fuuqsan karo masha Allah anagu hiil baa idin la garab taagana laakiin hal mid ninkii dhoof ku yimi may geeridu dhibaysa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doona dhulqaatuma waay adeer dhul aad leedahay ma jiro labaad leedahay Hargeysa iyo Berbera leedahay meel kala haysato ma ba aragba waa gartay ilaa Burcaana iska السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مركب هراء وحأم هذا علينا يا قف كستا أو ولا الصومالية دو كسو قيب قلي أرنتنا أنه ربنا إن أنكو عدينو حسوقي كدعي لاسعانود إيو إن أنو إسكرب استاغنو يعني مركب نقوم هذا علينا يا قف كستا كسو قيب قلي أما ولا لها صومالية هالنقطة أما كو دلشة هالنقطة لبضبا وحن كلهم هذا علينا يا قف كستا أو صومالية شوغا geesku rababa ha ka joogo arinta xasuuqa laascaanood meel cad ka istaagay oo dareensan Soomaalinimadu waxay tahay iyo inaysan banaaneyn bulsho dhalinyaro ama dumar ama dad waaweyn in lagu xasuuqo si sharci darro ah reer laascaanood ama SSC ama khaatumo especially laascaanood waxa la caadaystay in hal doorka laga dilo iyadoo lagu cabsi gelinayo waxa la sameeyay si awoodooda loo wiiqo in iyaga la isu bahalageliyo oo la kala sooco waxaan u maleynayaa arintaasi way soo dhamaatay waxaan u mahad celinayaa guuto koobaad dhalinyarada 20 ka yar iyo gabdhaha geesiyaasha ah ee qoryaha uu gawaarida ay qoryuhu saaran yihiin iyagoo dhagax sita ka hortagay aan u baqin ee u bareeray qaarkoodna ay ku godgaleen runtii waan u mahad celinayaa kama xumi geeridooda waayo waxay ku geeriyoodeen waa xorriyadoodii waa noloshooda iyo dhibaatada lagu hayo adkaysan waayeen
marka kama xumi runtii waxaan ka xumahay waa dhalinyaro caruurtayda oo kale ah oo dhintay waan ka xumahay dhinaca kale markaan eego waxii ugu wanaagsanaabay ku dhinteen oo ah difaaca iyo xorriyadda guriga iyagu lahaayeen midna waan u sheegayaa dhulbahante inaysan dhexdhexaad ka noqonin arrinta gurigooda waxaa laydinku soo weeraray gurigiinnii waxaa la xasuuqayaa caruurtiinnii iyo dumarkiinnii waa laydin xiniyo taabtay marka ma aha inaad hadal jilicsan iyo baqadin la joogtaan meel war dagaalama dhagax bay caruurtu ku dagaalantay guryaha ka soo baxa dhalinyaradana anigu dadkan ku xisaabtamaya run haddaa rabtaan waa dhalinyarada caruurtayda laaleeg waa 20 jirka 25 jirka ayaan ku xisaabtamayaa kaasay ah darwiishkii aan maanta ku faanaan laabta u garaacdo caruurtaasa ah marka waxaan leeyahay guushu way dhowdahay arintu meel wanaagsan bay maraysaa kacadoonka shacabka cid celin kartaa ma jirto yaan la dhicisaynin kacadoonka shicibka yaan la dhicisaynin jeebkeena iyo gacanteena aynu isbarno teeda kale tan mid ogaada xorriyadda waxa la yiraahdo markay gurigaaga tahay kaftan iyo sheeko kuma timaado dhimashay imaanaysa dhaawac baa imanaya yaana laga qaxin laascaanood caruurta yaryar hadii lagala baxaya lagala baxo inamada yaryar ee 15 jirka xataa haduu jiro qori ha loo dhiibo wax alla waxay ku dagaalamayaan ha ku dagaalameen ha ku difaacdaan deegaankooda walaalaha kale ee aan idhaahdo anigu waa hiil walaal waa mid dhalasho iyo mid Soomaalinimo intaba way u baahan tahay laascaanood iyo SSC oo dhan waayo waxaan ogahay qof u dhashay deegaanka SSC inaanu qofna cid la kaga tagaynin ama mid qabiil la dhashay ha noqdo ama qof kale Soomaaliyeed ha noqdo waxaan la ooyayay oo aan la dhibataysnaa qaraxyada anigu Muqdisho waan tagay aad baan u jecelahay qaraxyadii ka dhacayay waan ka dhibataysnaa waa qof Soomaali oo calankaas aan wadaagno oo aanan cid la kaga tagaynin iskaba dhaaf deegaan kale oo aan la dhashayna meesha ma yaalo marka dadka afxumada meelaha la wareegayo yaan la eegin لأنه قفنا قبيل ما متلو قفكي وحو ربو أوران كرا ما أوجد إني قديات كتاعي ما أوجد إنه شخصي واستعماله مرك قف سوشيال ميديا سو استاجي يعني حمان لو قادين فعل بالينا جربا عن كل دفاع عنه ديجان كأنه كل حريصنه نينك من سن وحو يسوق شلي جديد إنه ما أنت أديك كرك كاسارنا أبي يسر أمله نلا أدون صدو أما لوج شيكتو لابتا لوج راعدو dardaarankeenu waa difaac dardaarankeenu waa midnimo dadkeenu hamiday isnaadaan midnimo ayaa meel fog lagu gaadhaya xaqiiqatan marka guul baan idin rajaynayaa dhammaantiin waa idin mahad celinayaa waxaan salaamayaa marka koowaad dadweynaha sharafta leh odayaasha bulshada oo dhan gabdhaha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ku xigta waxaa jira qodob iga dhex guuxaya oo naftaydu markasta ay tabayso oo fariin baan u dirayaa dadka sool ku nool actually laba fariimood baan u dirayaa fariinta koowaad waxay tahay ragga jooga wiilasha yaryar ee geesiyiinta ah ee dhagaxa tuuraya waxaan leeyahay horta hambalyo kun jeer hambalyo waxaad samayseen wax looga baahnaa konton jirada guryaha ku qarsanaya hubka oo markii nin adeerkiisa ama laba qabiil maadeerihi ay islaayaan 100,000 oo qori iyo hubka waaweyn la soo baxaya marka cadow yimaadana gurigiisa hoosta ka soo xiranaya kuwaas ayaad ka qaalisantihiin baan leeyahay gabdhaha iyo wiilasha yaryar ee mid 20 gaadhay uusan ku jirin waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaad ka qaalisantihiin dadkaas konton jirada ah oo wax ku dhacay aan garanayn maba garanayno wax ku dhacay haddaanu isweydiino dhulkiina difaacda waana xadiis saxiixa oo ilaah nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka sugan marka naftaada iyo maalkaaga lagugu yimaado ama si aayado inaad sharaftaada difaacatid maanta haddaan isdifaacayn maba garanayo maalinta isdifaaci doonaa mana xasuusan karo waxaanan ka daalayn inaan u hambaliyeeyo dhalinyarada fayday dulligii
15 sano saaraa iyo dayicii dadkooda ay ku sugnaayeen allahu akbar baan leeyahay guulaysta rabbi baa idinla jira one dayna hadafkiina waad gaadhaysaan intii dhimatayna waa jihaad fii sabiilillah kitaabka qur-aankaanu ku haynaa annagaa baranay oo aayaadka sheegaya dul istaagnay inay gelayaan jannatul firdaws al-aclaa waxaan la hadlayaa ragga dhulbahante dal iyo dibad meelaad joogtaanba war goboladaad u dhalateen nin dowlad dhexe oo Soomaaliya ka jirta ma jirto maxamed siyaad barra u dambeysay nin waliba wuxuu tagay gobolku u dhashay nin waliba wuxuu samaystay maamul nin waliba waa israacsan yahay war idinka maxaa idinku dhacay ilmaade rayaalo israaca haddaad israacdaan baddaad qalajin kartaan wax kale iska daay buurahana waa shiidi kartaan ma fahanta tafaraaruq yimid walba midka kale xiniyo u leeyahay mid kastoo dhulbahantahay in adeerkii bixiniyo u leeyahay ama tolkii bixiniyo u leeyahay war cadowga xiniyo u yeesha oo dadka idin cadowga xiniyo u yeesha oo cadowga iska difaaca oo dulliga iska fayda waa idin baryaynaa annagoon idin cambaaraynin waxaan idin leenahay ilaahay ka baqa isla yaaba dalkiina iyo dadkiina war anagu ma kaftami karno kaftankii baa naga xidhan buraan anigu hadda koor ka tiri horgaladaan u tirinay waxaan kuwii dadka iyaga ahaa dardaaran yar baan u qabay ee dulliga ku wacan war dadka iyagii maba kaftamo dood ma soo rugtaan dunida waa nagu disheen waa dayacanahay war dadkiini raaca wadaayinkiin ka baqa baan idhi buraanburkaasu ahaa qolada noo timina aanu dariska nahay horta dhiigooda ma rabno wiil Soomaali ku hadlaya inuu dhinto ma taageerayo anigu waa wiilkaygoo kale oo aan kaan dhalay oo kale weey waxaan leeyahay war waxaad shalay diidayseen oo dulliga dhahdeen dalkiini uga tagteen oo dulliga dhahdeen dulcad aad aadayseen oo dulliga dhahdeen dad kale inay ku khasabtaan soo dulmacad ma dad kale inay ku khasabtaan soo dulmacad ma aha dadka dalka iyaga inay gashaan soo dulmacad ma aha inaad daaraha gashaan soo dulmacad ma aha inuu kaaruhu dulmaro soo dulmacad ma aha shacabkii dulli gelinaysaan soo dulmacad ma aha dulmacad weeye dunidu waaba wada ogtahay daryeel nooma fidshaane wayna daawadaan baan daryeel nooma fidshaane wayna daawadaan dadkii Soomaaliyeed daaf kastuu yahay anigu reer ma odhanayo qabiilna ma odhanayo dadkii Soomaaliyeed daaf kastuu yahay daryeel noo fidiya oo daayinkiin ka baqaban leh Soomaaliba meel ay joogto war dulliga wada aragte uu qaba dadka iyagu daryeel noo fidiyo oo daayinkiin ka baqa calankaasaan anigu taageeraa kaasaan taageersanahay qabiil ma taageersani reerna ma dhahayo waxaan leeyahay dulmiga ilaahay ha faydo dadka Soomaaliyeedna Soomaalinimo islaamnimo hanoogu hiliyeen tan waa shahaada waa shahiid tani waa shahiid fi sabiilillah ee ilaahay dartii shacabka masaakiinta ah ugu hiliya maamulada hareeraha naga xiga waxaan leeyahay war markaan dawladaha kale maamulada kale waa la dhisaa dawladda federaalka ba waxay siisa dhaqaalo way garab istaagtaa maxay hayday waa loo ciyaaraa war annaga intaanu isu tagnay annagoo dhulbahanta kaliya oo aanan daarood kaalmo ka sugin oo aanan harti ka sugin baanu intaanu isu tagnay baanu waxaanu dhisnay khaatimo 1 khaatimo 2 khaatimo 3 idinkuna labada lugood baa naga jarayseen haddaad tihiin dariska iyo haddaad tihiin dawladda sare oo aanu calanka dhiigga iyagu u dhammaaday xataa nala kuma caawiyo calankaas oo dhiigga iyagu u dhammaaday nala kuma caawiyo ilaa Sayd Maxamed Cabdullaahi Xasan baanu taariikh ku lahayn oo aanu u dhimanaynay nalama damqanayo sababta ma garanayo Soomaali oo dhan baa su'aasha weydiinaya war haddaanu diidnay dalka in la kala gooyo haddaanu Soomaali nidhi mid ha ahaato war haddaanu nidhi dadka Soomaaliyeed oo dhan waa walaalahayo maxaanu ku weynay caawimada Soomaaliyeed maxaanu uga weynay dawladda maxay ahayd dawladdii dhisantaba war warqadda annaga dhaqaalaha la baxayna annagoo dhulbahanta ah oo aan cidna baryayn baanu dhaqaalaha la baxayna khaatuma state-na annaga dhisanayne war noo saxeexa nimanka dawladda fadhiyo noo saxeexa kaliya war qalinka kaliya noogu duuga war dhaqaala idinkama rabno garab idinkama rabne noo saxeexo waxa tiraan waan aqoonsanay khaatuma state of Somalia inta kaliya noogu hiliya oo ilaahay nagaga baqa oo shacabka iyo gabdhaha dhimanaya war dhakhtar male dhaqaalaha annaga loo keeni lahaa dadka iyaga gabadha iyadoo Hargeysa loola sii cararayo ama Garowe loola sii cararayo dariiqa ku dhimataa gabadha xaamilka ah warkii gacanta laga gooyo dhaawaca cid lama helo
dhaqaalaha lagu soo qaato magac ayagana hareeraha ayaga lagu cunaa war dawladda saraa ilaahay naga baqan leh ilaahay naga baqa oo dhaqaala idin kama rabnay anagu qoyska dhulbahantaan isku filanahay saxiixa noogu jiido waxa tana Khaatuna state waxaan u aqoonsanay steedyada kale xaq baan u leenahay dadka kale laba gobol iyo barbay haystaan war anagu waxaan haysanaa 5 gobol oo siman waxaanu leenahay cayn waxaanu leenahay sanaag soolba 3 gobola boocame ee laascanood maxaana loo ku diiday xaqii aanu lahayn ee qof kasta oo Soomaaliyeed helay qof kasta oo Soomaaliyeed xaqii uu helay iyo aqoonsigii maamulkiisu helay maxaa Khaatuna state loogu diiday waxaan u sheegayaa oo fariinta u diray Xasan Sheekh Maxamuud war kitaabaad martay oo waxa tiri madaxweynihii Soomaaliya Soomaaliya gabadhii habeen gaajoota mas'uul ba ka saaran shacabka laascaanooda dhiig baxayana mas'uul ba ka saaran wallahi billahi tallahi maalinta amaam Allah waa lagu weydiinaya warqadda kaliya noo saxiix oo waxa tirada Khaatuma waan aqoonsaday kadib anaga isku filan ilaahay baa na siiyay awood iyo karti waana ku adkaysanayaa waxaan kale ku darayaa waan ku dheeraaday qodobkan ku darayaa wuxuu yahay waraga kala duuhaynaya oo kala duumanaya oo laaluushka soo qaadanaya oo $15 masiirka dadkooda dhiigooda ku iibsanayo laascaanood jooga fariin baan u diraya war waxaan leeyahay ilaahay naga baqa oo wiilasha yar yar ee dhagaxa tuuraya iyo gabdhaha yar yar oo dhiigoodii dhamaaday qaarna god galeen war laaluusha ku cunina ku dhintaan leeyahay kii ku cuno ku dhino dhulbahantana waxaan u dirayaa fariin ah ninka ka soo jeesta halka maanta maalin kale yeelkeed oo dhiiga dadka laaluush ku cuna war reer go'aan aynu ka qaadano dal iyo dibad inuu dhiigiisu xalaal yahay oo in la dilo ay tahay haddii kale markuu laaluush qaato oo dadka dhiigooda iibsado hadhow reer hebel buu haaye ninka yagii baa la dilay ha la soo fadhiisanina waxaan leeyahay ragga laascaanood guddi ha loo saaro ha laga fadhiisto ninkii horgal ah ciduu doonaba ha u ahaade ha la dilo cid u doodana yaan la helin waa fariintayda waan ku dheeraaday barakallahu fiikum waan khayrooday waxaan siinayaa dadka kale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan tahay Dacanab Cabdinuur Xaashi waxaan u yeerayaa Leila Axmed Warsame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدو سلام يا شعب وينها الصومالية ده هالكن السجوي مثل شرفت بدن نقرأ قيب قلي هوانك يوضياش دمانتين آد بايدين سلام يا ما أنت ومال آدو قالي وحساسي وعن إن بلغا مقنان كريم قفك السوء دمير له إلهي وحن نقول هتشيني أنو قبل السول سنة يعين إلهي نبات كدقو أودو دنا وإلهي تسوق ودو إليهن إلهي وتسوق شعبك قبل كسول waxaan ugu baaqayaa inay shaqsi walba oo gobolka Sool uu ku nool inuu midnimada dhulbahanta u taagnaado oo reer hebel iyo qabiil uu ka baxo nin horgalana shaqsi uu matalo oo dhulbahanta ama jiro namana matalo garaadada dhulbahantana mid baan ugu baaqayaa in ay danta dhulbahanta u istaagaan iyo xorriyadda magaaladooda dadkii way dhinteen shacabkii waa la laayay magaaladii dadkii waa lagu gumeysanayaa rafaad iyo silcibaa ka jira aad u fara badan aan loo dulqaadan karin qof kasta oo damiir leh talabaad gabdhaha SSC ee gobolka Sool gabdhihii ku geeriyooday iyo dhalinyaradii ku geeriyooday taariikhda ay xusi doontaa taariikh baad gali doontaan taala dahabana la idin dhisayaa waxaana dhulbahanta ugu baaqayaa inaan saqiir oo kabiir xabada wada ridno ayna shakhsi reer hebel aynu ka tagno aynu dagaalano ana ugu horeeyo dhimashada diyaar baan ahay bana cabsado وانا دمانينا عيدينا waan ku dhimanayna cid kuma duulayno cid uma socono xaafad reer degaan ma aadayno talabaadna dhulbahanta maalintu isagu waxaan aaminsanahay daarood inaynu u baahnayn hadaa anaga isku tiirsanaano oo quwadeena iyo awoodeena aan laamiga la soo istaagno Soomaaliya oo dhan way soo gumeysatay laakiin anaga waxaan reerka aan wali la gumeysan waxaan ragii calanka buluuga oo wayaasheen calanka buluuga u dhinteen ayagoo waran iyo seef ku dagaalamaya maanta oo hubjiyo oo qof kasta uu dagaalami karo in maanta shacabkeena iyo caruuraheena gobolka Sool magaaladan ku dhalna inta ku leekaan in maanta lagu gumeysto waa ka soo horjeednaa
muuse bixi iyo afartan nin ee la socdaana nama matalaan nin kasta oo dhulbahanta oo qadiyada dhulbahanta u dagaalamaya nama matala hadduu aabahay aniga dhalay nin Soomaaliland la socday ma matalo waxaan ugu baaqayaa shacabka gobolka Sool waxa ay isku duubnaan iyo inaynu dagaalano iyo inaynu ciideena u dhimano qof walba uu ciidiisa u dhinto talabaad oo kale oo taala meesha waxay tahay maanta 30 sano dadkii dawlad ahaa oo dawladda Soomaaliya la dagaalanay ku sheekeeya 15 daqiiqo ay gudaheed ayaa gobolka Sool laga xoreeyay oo calanka Khaatumo uu ku babanaya rag baana dhiigood iyo caruur dhiigood ku dhintay rag maanta hub waaweyn oo maraafiic lagu ma garaacin qoryo yaryar baa lagu riday qoryo yaryar baa magaalada Laascaanood laga saaray 15 daqiiqo waxaan dhamayn waxaan ugu baaqayaa marka ragga tukaraq fadhiya iyo ragga laamiyada fadhiya oo anu ma garanayo sababta ay u fadhiyaan waa inaad shahaadaan waa inaad xabad ritaan ragga gobolada kale ciidamada kale u shaqeeya reeraha kale xitaa la idima dooranin inaad meel cidla fadhidaan waa inaad dhiigiina aad maanta muujisaan qof kasta oo dhulbahantaana weenu qadiyadiisa laabta ka ogaado dhulbahantanimo waa inaad ku dhimataan calanka buluugana waa inaad ku dhimataan hooyada oo magaalada Laascaanood laga xansuuqayo oo lagu dilay ciideedii hadalka nuuxtaani qofkii damiir lagu taabtay qofkan damiir lahayn aanu ka hadli maayo qof kasta oo dhulbahanta ahow qorigaaga meel kasta taaganta nin kasta dhulbahanta oo qorigaaga qaado ma arki karo nin dhanbo dhulbahanto calaacal nooc calaacal وين نسكتنا وين ندلكن يعيدنا عين أودي منها علينا هقلب تشبيننا رجع يضمر حبذا وين نجوا ذا قناتها كقربها تشجع وين وشينا كبحيا رجع على ذا كيسا صدم كسرنا صاحب قاتش أوجد أي نجح عمل شو كحرن ترى أنا جرى واقو حرنا ينام وبالله توفيق آد بايدين سلام يا ومد الصومالية ده شرفت بدن آد بقول سلام يا ومدى الصومالية شرفت بدن آد بقول سلام يا الصومالي وين ملك استيجوكتو وأجن هاي ما أنت ماشي أدنو تاجنتين وأجن هاي ما أنت مجا عي ماموسك أنا دكتور أنا هاي وأتجرى إنسان على كابلوج ما أنت اللي وقوي بالغ كهني قبل هذا السؤال سنة جي عي رجع إسكالة بقول أنت يجوس ورن يسيف وتا قف كله وبلادنا على كاشجن كلام جرتو إذا جو أوجن على كاس قول أنتينا ما أنت إنا قلنا قاضنا وبهدل الدنيا كوجوين وحنا آد السلام يا شعب الصوماليات قيرة عائلة تكتئات بحساسية يدوك عصام تحي مرك آد بايدين سلام يا صومالي ودنا والسلام يا للبهان تونا إسكدوبني يا أود يا كرتي يا حوق يا ودني هنا نفتنا هنا هرنا والسلام عليكم جزاك الله خير ليلى كلمة قيمة بدن سوتشي سير هذا لي وحان ويدي يا حق يعني هبلها آمنة مستوى فردو آمنة سواكع وهاي قبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراد باين سلام دمان أهلك شرفت لعاو هلك نسويمي سكية يو قلبا عاد باين سلام ومهسنتهين انتي ماشي كذا شنات بنو السلام يا تماشي عاوقيرة لسليمي لكن دري ولا بشيل الكيس دكتور وقلا قبله جوا كم هارين marka anigu hadda taa dib ugu noqon maayo qolaa waxa lagu yiri qoladan mashaartanka waxa lagu yiri warbarigaad u gasheen xabashida barigaan xabashida hubka ka soo qaadateen oo Soomaali kula soo guurteen markaas ay idinku jawaasiis baad haydeen marka waxaan idhi anagu jawaasiis waxaan u ahayn dalkaanu ahayn laakiin adigu dalsheeyad u tagto way ka soo qaadato baad ka soo ala kulli xaal waxa weeyaan gabdhuhu ay gadoodin inagu de kolley ma meesha waynu iska joognaay rag baa inagu shaqo taga moogta rag baa meesha inagu shaqo taga marka de hadday waa shaqada inagu shaqo tagaan si wanaagsan inagu shaqo tagi lahaayeen xinoo soo dhicin lahay xoo maahe waxa weeyaan siday de golayaasha u fadhisanay ma garan maayo raggan waxa weeyaan kii la isiraado maanta isaga wanaagsan waa ka ugu daranba meelaha ka baxa waxaan u maleynayaa inaga qolada caabud waa hadda cid meesha ka joogta garan maayo arma fadhiyaan qaar inaga qolada caabud waa waxaan u maleynayaa isku meel bay wada taaganahay ala kulli xal taas waa kaftan mahadsantihiin reer Soolo waxaan leeyahay raqba waa ku ninkeedii waxa weeyaan maanta how kala hadhina de marka qofku uu ismuujiyo oo soo baxo oo ismuujiyo maaragta waa la garab gelayaa waa loo soo istaagaya waa la galab galaya markaan uu daarood Ismaaciil ahaan in waxaan ku ceeriyo ba garmay de markaan anigu istaaga daarood ku soo agisaay karaay
aniga waa inaan horta marka hore ismuujiyo marka midnima la inooga baahan yahay insha Allah wax kala tari maayo tixdeedii yareed baan iska bilaabanaya maan malayn tixdeedii yareed baan iska bilaabanaya saxmaha hargeysay qorshahaydun sida taani saxmaha hargeysay qorshahaydun sida taani sanqarhmaydin yara baxdo waydun seelesheeni sawbaydin muuqdayaan saydhin dhiibicdiiye suudiyo naqweedh weedhabaad sabdhex wadataane suudiyo naqweedh weedhabaad sabdhex wadataane sabidheelalaabo waxaad tihiin sabaydhuu seeray suurinkiye saqdhexaad qarwaysan habeen maray 8 saace haddaydin moodi sool iyo sanaagsaa in lagu dhaafi kasal weyna muuruhu sidaad waxiisu siisayne maseexane raggeedii waxay soo wataan gumuuce suldaan iyo garaad iyo uga subanoo sharaf leh oo seefta miidigaystay oo sumanka adkaystay waa soo socdaa reer saciid saliyo barkiise siqiir iyo kabiirkood waxay soo wataan qoriye siqiir iyo kabiirkood waxay soo wataan qoriye samadoonadiiba horwada sadhidiriireede oo soo samraayo wax badan sama ku soo daalay qaar sarac go'an saday markay sacday cadhadoodu qaar sarac go'an saday markay saqday cadhadoodu sad bursiiya doonka qabsaday saraha lascano sunta gumuuca boode naflaha sibta noloshiisa iyadoo salaan looga dhigay laguna soryeeyey oo soo sallamay bay wale soconi doonaane safsafaa u baabiiragyow sababtan awgeede oo dabaalugaha ku sudhan ninkiisa hashanayowe sandullaha ninkii lagu xukumi safta iyo leebka iyo sadaadadkii lagu kurdiyo kii sarrayn karaba subaxaan fogayn baan kolley kala saxmaynaaye waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waxaan ka xumahay oo aan isugu nimi waa ka gilgilashadii iyo ka horimaadkii xasuuqii dadka loogu geystay shicibka ah laascaanood waxaan rabnaa marka inaan u sheego qolyaha rajiimka ah ee ku soo duulay magaalada laascaanood waxaa iska leh waa shicibka rabitaanka shicibka ayay ku meel maraysaa waxa ay tahay marka waxaan odhan lahaa ha ku soo lugiina ha islugoynina ninkii iska lahaa laascaanood baa jooga cid xukumi kartaa ma jirto waxaan ku leeyahay xamaamadaada ka qaado guri baad leedahay gurigaaga ku tasho kan annagaa iska leh maamulkiisa annagaa leh xorriyaddiisa annagaa leh annagaa ku dhimanayna marka waxaan ku leeyahay niyow intaan lagu jiidjiidin annaga shicibka colaadi nagama dhaxayso waa in mid la kala saaro ama rajiimka nagu soo duulay halkaas inaan xabad kaga dhufannaa naga dhaxaysa asxaab nagama dhaxayso kabihiisa aan ku gubno oo aan halkaa madaxa ka toogano taa ogaada shicib laakiin nagama dhaxaysanina isaga ay waddo sheeko kale mooyaane waa mahadsantihiin mar kale shicibka colaadi nagama dhaxayso wiil iyo abtigi baanu nahay dadkaanu isugu xignaa degaan baanu nahay kaliya waanu jecel lahay iyagaba dhibkana haysta wuu haystaa si xaqiiqa waxaanu ognahay shicibka ee waqooyi galbeed dhibkana haysta inuu haysto annagu waxaanu diidanahay dulmiga wiil Soomaaliyeed inuu dhinto ma rabno waa wiilasha iyadoo kale laakiin wiilasha yaryar la soo khalday waxaan leeyahay habar yar guryihiinni aada dagaal xaq kuma jirtaane kani waa baadil guryihiinni aada tan dad baa ilaahay ku abuuray idinkana meel baa la idinku abuuray meeshii ilaahay idinku abuuray aada habar yar waa la idin soo khalday dhalinyaraatiin inaad qoomamaysaan baa laga yaabaa marka aqligiinu uu buuxsamee iska taga
ilaahay anagu halkaan ugu abuuray annagaa iskale idinkana meel baa alla idinku abuuray geeridiinana kuma faraxsanin hooyo inay owdo ma rabno gabadhin asay loo saaro ma rabno qof Soomaali ku hadlaya ma dilayno annagu mana dilo taariikh baanu ku leenahay hadaan dhulbaantanahay qof kasta oo Soomaali waa walaalkayo idinkuna haddaad tiin reer Sheekh Saaq William tigi baynu nahay waxaynu nahay nin iyo seedigi waxaynu nahay toli xigaal waxaynu nahay luqad qura iskaga taga malihidin laascanood idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa og yahay ummaduna way ogtahay iska taga idinkoo nabada dadka shacabkaana ka daaya hagardaamada awal bay abaar iyo colaad iyo dawla'aan iyo wax walba haysatay dib ha ugu darinina aakhiraha ku naar mudanine iska taga guryihiinii nabad Allah idinku geeyo annaguna cadow idinkuma nihin shacabka haddaad tihiin yaa la idin soo khaldin wabillahi tawfiiq wa sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaan lambar 1 waxaan tacsi u dirayaa tiraayale dhammaan dhalinyaradii iyo haweenkii lagu xasuuqay magaalada Laascaanood baan ka tacsi inkastoo ay shahiid yihiin oo ehlu janno yihiin oo dhulkoodii loogu yimid haddana waan ka sii tacsiinay waana ka xumahay waxaan fariin u dirayaa iyo baaq reer SNM ta ku soo duushay magaalada Laascaanood inay aadaan guryahoodii iyo meelahay ka yimaadeen inay intay nabad qabaan ku noqdaan haddii ay xaaladdu dhaafto hadeerto waanu idin abhinay abiska hadday dhaafto dee qof idinkama baxayo hadda intay goorigoor tahay baxa halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda reer Laascaanood ayaan halkan tacsi uga dirayaa waxaan leeyahay Allahu naxariisto intii dhimatay jannatul firdaws ilaahay uga baryaaya insha Allah waxaan halkan kala hadlayaa Muuse Shaani adeer Muuse dhul baad leedahay dadkaana dhulkooday joogaan nin walba dhul buu ilaahay ku beeray subxaanahu wa ta'aala sool iyo sanaag iyo cayn waxa iska leh niman hartiya isaaq ma laha qabiil kale oo Soomaaliyeedna ma laha nimankan dhulkooda iyaga leh iyagaana ka talinaya soo waxaad gartay maaha waa nimankii Ingiriiska ka saaray gumaysiga ka saaray marka meeshaad u mahadnaqi lahayd oo taankiyood oran lahayd ayaad xasuuq u geysanaysaa xasuuq looma baahna dhulka soo anigu ma lihi ninkii dhoof ku yimay geeridu dhibaysa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doona dhulka atuma waay adeer dhul aad leedahay ma jiro labaad leedahay Hargeysa iyo Berbera leedahay meel kala haysato ma aragba waa gartay ilaa Burca ana iska leh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan ku hadlo afka gabdhaha daarood gaar ahaan gabdhaha sade waxa waa inaan baxaan rabay maadaama meeshaan iskuubaabin iyo dhiiragelin ay ka jirtay lagu taageerayo walaalaheena dhulbahante SC waxaan isla garanay inaan ku hadlo afka gabdhaha beesha sade horta dhulbahanta waxaa mahad Ilaahay inay heeriyadii tuurteen waxaa mahad Ilaahay inay isku tashateen wax badanna waxa la yiri dhulbahante waa ku shubo horta maanta waxa ka xorowdeen eragii ahaa ku shubo waay dhulbahante eragaas aad ka xorowdeen waa isku tashateen waa idinku taageeraynaa anagu hiil iyo hooba idala garab taagana anagu waana la yaqaanaa beesha sidaana la dhahaa anagu furuntaana horta waxaan ku fiicana inaan furunta horanahay waxa laala wixii waxa waaye beesha daarood looga baahnaa waxaan dareemayaa oo garawsanahay inay sida kaliya isku fuuqsan karo anagu hiil baa idala garab taagana laakiin hal mid waxa beesha dhulbahante lagu xantaa dad tafaraaruq badan oo la kala furfuri karo si easy ah loo kala furfuri karo waxaan rajaynayaa inaysan nagu soo noqon dhulbahante ayaa dib loo kala furfuray oo waa kala dhuunteen oo nimankii ragga ahaa ee ku doodi jiray maxay ahayd lafaha kabahana lagu aasay ragga ayaga ah inaan dib loogu laaban awalba gobonimada adinka keenay adinkaana calankan laydinku helay waxaan rajaynayaa inaan halkaa ka sii wadaan helganka sii wadaan annaga beesha daarood ah gaar ahaanna beesha sade oo mas'uulkeena joogo maxamed cumar way idala garab taagana hiil iyo hoo wixii aad naga lahaydeen waa maasanta